gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbaro oo hadda la hadlay warbaahinta ayaa tacsi u diray eheladii iyo qoysaskii dadkii shalay lagu laayay gudaha magaalada Ceelafweyn. dadka dhintay oo ka koobnaa 7 ruux iskugu jiray rag iyo dumarba iyo 2 qof oo dhaawaca. dadkaas oo ay laayeen koox dableeya. sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu sheegay inay ku daba jiraan ka xukuumad ahaan dadkii geystay dilkaas. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun illa lillahi wa inna ilayhi raaji'uun qadar Allah ma shaa facal wixii ay qadareen baa dhacay. waxaan halkan taxasuub marinayaa dhammaan qoysaskii ay ka gooriyoodeen 7 qof ee ka gooriyooday shaqaaqadii ka dhacday Ceelafweyn. anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xukuumadaba waxaan leeyahay Soomaaliyeed Allah inaga wada siiyo. waxaan ka taxsanaynaa dhammaan reer Soomaaliland oo dhan waa dhibaato nagu wada dhacday mid cid wanaag doonaysa ay samaysay maaha. dhibaatadeeday leedahay ficil xun baa dhacay. ficilku xun Ilaahay nool musay shaydaan baa ka adeegay. waxaan leenahay walaalayaal Soomaaliyeed baan ilaalinay qoysaskii xaasaskii dhibaatada ugu sii weyn waxa weeye waxay u badan yihiin dumar. waa ogtihiin dumarku dhibaatada qoyska ay kaga tagaan iyo raadka ku reebaan. ilaahay caawil khayr qaba ha idinka siiyaan leenahay. Soomaaliyeed Allah inaga siiyo. cidii falka fulisayna mid lagaga harayo maaha. waa dambiilayaal cid walba waa ka dambiilayaal xaqii qoyskan iyo xaq qoyskooda labadaba waa ka dambiilayaal. cidii soo dirtay adeegsatayna ilaahay de ballanqaadku ugu ballanqaaday way noognahay waa cadaab. ilaahay laakiin inaga ilaahay caawil khayr qaba ha inaga siiyo dhamaantii maan leeyahay. walaalayaal Soomaaliyeed iimaan isxakameeya samirka ogaada. ilaahay baa inagu amray oo inoo ballan qaaday oo yiri inna Allahu ma'a saabiriin. ilaahay wuxuu la jiraa kuwa samra. taadeedo ugu weyn waxa weeyaan waa samirka hal ogaado. ilaahay Soomaaliyeed ma inaga siiyo caawil khayr qabta Allah inaga wada siiyo. falka xuna dhacay insha Allah xukuumad ahaana waa lagu daba jiraa. dad badan oo la qabtay waa jiraan baarid baa la geliyay. ayaa la jaamac Saalax badda 24 TV magaalada Ceelafweyn.